munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa xalay isugu yimiday taageerayaasha kala duwan ee urur siyaasadeedka shacabka ee xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama gaar ahaan xaafadaha Sheekh Cismaan, Sheekh Makaahil, Sheekh Axmed Salaan iyo Sheekh Cali Jawhar kuwaasi oo munaasabadaasi ku muujiyay taageerada u hayaan urur siyaasadeedka shacabka. munaasabadani ayaa waxaa taageerayaasha kala duwan ee ururka kala soo qayb galay wafdi ballaaran oo uu horkacayo gudoomiyaha ururkaasi garyaqaan Maxamed Maxamuud Timo iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi garyaqaan Mukhtaar Daahir Jibriil oo ay weheliyaan madax iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee ururkaasi ee heer qaran iyo heer gobol. waxaan halkan maanta uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba cadceeddii aan maanta taagnayn shacab weynihii mugga iyo miisaanka leh ee u muujiyay taageerada ururka shacabka gobolka Awdal anigoo ku hadlaya hogaankooda waxaan muujinay taageerada baaxadda leh aynu u hayno ururka shacabka. bulshada intaa leeg baa ilaa maanta cadceedda noo taagnay nagala soo qayb gashay runtii ururku waa urur ku taagan shacabka Somaliland cid gaari ma laha qabiil ma laha ururkani waa urur dhalinyaro sanadkiisii hoggaankiisu waa hoggaan dhalinyaro marka waxaan leenahay ku soo dhawaada waxaan leenahay ka qayb noqda aad baad u mahadsantihiin. sidaynu ogsoonahay urur siyaasadeedka shacabku waxa uu ka turjumayaa himilada iyo hiigsiga iyo helitaanka shacabka jamhuuriyadda Somaliland taasoo lagu gaari doono midnimo nabad xasilooni iyo barwaaqo. lama heli karo urur xogaye toddoba xogaye heer qarana gobolka Awdal siiyey ma jiro ama lama helayo taasna waa mid ururka shacabka ka gooyay ma uu helo ururka shacabka ma soo saarnaa. waxaan soo dhaweynayaa urur siyaasadeedka shacabka Somaliland ha noolaado kor ha u kaco. marka halqabsigeedu waxa weeyaan ururkeedu waa shacabka ana sheekhiini baan ahay shaytaan kalaaska naaraysan. waxaan leeyahay reer Boorama kaarkiina yeeshada qof kastoo kaarkaaga meel adag dhigo yaan si urufud la idinka qaadin si ilaashada waayo dadkii lacagaa sitay ee hore u qaatay lacagay la cararayaan kaarkaasay kuranayaan ilaashada. ururka shacabka siduu magaciisu sheegayo waxa aan u samaynay in qabyaaladda lagaga baxo. waxaan idinka codsanayaa si dhallinyaradiinnii hablihiinnii aqoon-yahankiinnii culimadiinnii intuba ay u yimaadaan saaxadda siyaasadda inaad codkiinna wanaagsan aad noogu deeqdaan. caawo waxaa farxad labaad noo ah annagu haddaan nahay hoggaanka ururka shacabka in afartii xaafadood ee magaalada Boorame Sheekh Cali Jawhar iyo Sheekh Cismaan iyo Sheekh Makaahil iyo Sheekh Axmed Salaan ay caawa taageeradooda ku soo biiriyeen urur siyaasadeedka shacabka Somaliland. ururkaasoo ka mid ah ururada u tartamaya maanta inay noqdaan xisbiya hogaamiye siyaasadda 10 sano soo socda. muwaadiniintu mar walba waxaa soo marta fursadda ah in 10 sanaba hal mar ay xaq u yeeshaan inay doortaan cidda ay ku aaminayaan mustaqbalkooda halka ay ka soo baxayaan siyaasiyiinta ay doonayaan. annagoo taa ka duulaynaa waxaynu ka warqabnaa inayna qaybisay siyaasad qabyaalad ku dhisan oo mar walba dhibaato ku ah shacabka wadajirkiisa iyo wax wada qabsigiisa. annagoo siday ka warrameen hoggaanka xubnaha iga horreeyey ee haween iyo rag balaha ururkayagani waxa uu aasaaskiisu ku salaysan yahay la dagaalanka qabyaaladda iyo wada qabsiga wadajirka inta danta ku wada midowday. waxaa kale oo ku salaysan yahay inuu wax ka soco arrimaha saamigeenna innagu haddaynu galbeedka aynu aad uga cabanno waxaanu sixitaanka ka bilownay dhismaha iyo unugga ururkan oo hoggaankiisa aanu limilaabnay inta xisbiyada kale ay la siiyaan rag iyo haween. waxaa farxad weyni ah inaan ka soo qayb galo ama aan ku soo dhaweeyo taageerayaasha ururka shacabka ee afarta caabudood ee magaalada Boorama kuwaasoo
runtii ilaa saak ilaa caawa saacadda markii 12 si aada oo na dawaqday isla soo dhaweeyay waxaanu aragnay maadaama anagu loo yaranahay waxaana soo mari jiray cabashooyinka u badan ee shacabka reer Soomaaliland haysta hadday waxbarasho tahay iyo haddii ay tahay caafimaad iyo haddii ay cadaalad tahayba adeegyadaasi dhammaantood waxay hayeen kuwo shacabku ku dhibaataysan yihiin dareenada badan ee dhacay ayaa isu keenay aniga iyo gudoomiyaha iyo nimanka halka jooga dadka iskama jeclin wax gaarana ma wadaagno dan aanu leenahay oo ka leenahay siyaasadana oo aan taa shacabka hayna ma jirto waayo intii waddanka la soo galay waxaanu hayn looyaro jooga shacabka u adeega shaqo iyo arrimo kale midna koo dhibaataysnay hunguri iyo masabnimo jecelna ma yihin waxaan u soconnaa in ummadda reer Somaliland ay noqdaan kuwo ka shaqeeya danahooda caamka kuwo garanaya baahidooda aasaasiga ah kuwo la tartamaya dowladaha iyo shacabka dariskooda